bismillaahi raxmaani raxiim. daawadayaal waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa mutamar sanadla ah oo lagu qabto dalka Norway, kaas oo ay ka soo qayb galaan culimo waaweyn oo isaga yimaada dunida dacaladeeda. sidaa iyo daawasho wacan. bismillaahir rahmaanir rahiim. lillaahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعا كصاب سيسن من أخلاق الداعية أما قفك دتك وغيريا يدقن كالغربه وهو الرين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكت المامية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلهي سبحانه وتعالى وحلي ياك هذا الفيعا ياك ورفيعا ممن دعا إلى الله كذلك الرب وغيره عمل ونكسن السماية yidhaahda waxaan ka mid ahay isagoo ku faanaya min almuslimiin baan ka mid ahay, dadka muslimiinta ah ayaan ka mid ahay. rabbi wuxuu qur-aanka in badan ku sharxayaa dacwada iyo muhiimadda ay leedahay iyo qofka muslimka ah sida looga rabo. akhlaaqdu, dhaqanku iyo diintu waa wax isku xidhan, waana mas'ale casrigan dambe wax badan laga qoray. akhlaaqi daaciya waxaan isku dayi doonaa ixda rasaa'il inaan soo koobo. moxamed saalix almunajid uu leeyahay akhlaaqiyaadka laga rabo qofka muslimka ee raba inuu dadka diinta ugu yeedha waa tiro badan yihiin. waa wixii islaamka laga rabay oo dhan baa laga rabaa. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo nebi moxamed amraya: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبي محمد ودتك waxaad ku tiraahdaa kan weeyaan jidkaygu, هذه سبيلي, kan baa jidkaygii ah. waxaana uu nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa adcuu ila allah. markaynu horta dacwo ka warranno, dacwada aynu sheegayna waa baaq. daca waa baaqay weeyaan, waa yeedhay. yaa loo yeedhayaa? bani aadamkaa loo yeedhayaa. maxaa loogu yeedhayaa ama xaggee loogu yeedhayaa? rabbigood inay caabudaan baa loogu yeedhayaa. qofka daacigii ee rasmiga ma qof dadka urur ugu yeedhaya ama koox ama group inuu xoojiyo, ee asalku waxa weeyaan waa qof dadka ugu yeedhaya inay rabbigood caabudaan. dacwadu marka la leeyahay waa ila allah, dan kale oo laga leeyahay ma jirto weeyaan. qofku magac kuma rabo, maamuus kuma rabo, mudnaanshiye kuma rabo, koox inuu xoojiyo ma rabo. waxa uu rabaa dadka kani inay hanuunaan oo rabbigooda caabudaan. waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah baa ilaahay leeyahay. yaa ka war fiican cidda dadka rabbigood ugu yeedha subxaanahu wa tacaala. camalkaasina waa shaqadii nebiyadu qaban jireen, waa shaqo sharaf badan. wainnahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun baa ilaahay yidhi. qur-aankan iyo diintana dadka ugu yeedhaysaa waa ladikrun laka waliqawmik baa ilahay yidhi. adiga iyo tolkaaba sharaf bay u tahay, waana laydin weydiin doonaa. walidaalika ayuha alixwa, qof kasta oo diintan wax ka garanaya
waxa saaran inuu diintan ku baaqo oo dadka ugu yeedho إلهي وحليه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب خاصة طلبة العلم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه waxaad xustaaba ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala dadka u sheegtaa ballanka alla ka qaaday kuwii kitaabka la siiyey ballanku muxuu yahay latubayyinunnahu linnaas dadka inay u caddayn doonaan walaa taktumuunaha aydan qarinayninna baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamedna wuxuu inagu yidhi balliquu cannii walow aaya halla aayadna ha noqotee dadka iga gaadhsiiya darsiga aynu u soconnaa markaa wuxuu yahay qofkaasi u kacay ama u qumay inuu ilaahay dadka ugu yeedho yidhaahdo war rabbigiina caabudoo raaca dariiqa saxaha mara waa maxay dhaqanka laga raba iyo akhlaaqiyaadka laga rabaa akhlaaqiyaadkii qofka muslimkaa laga rabay oo dhan waa laga rabaa waxaa kaloo dheeraadoo isaga laga rabaa akhlaaqiyaadkaasi halka ugu sarraysa inuu inta badan ka joogo waayo isagu waa qudwa waa qof diin u calaamadsan waa qof raba inuu qabto shaqadii ambiyadu qabanaysay casrigan aynu joognaana waa casri loojiga aad loo adeegsado aliqnaac in dadku isqanciyo iyo taswiiq ilfikra marketing in lagu sameeyo afkaarta in la suuq geeyo afkaarta suuqgeynteeda waxay ka weyn tahay silcada iyo alaabta suuqgeynteeda dunida maanta waxaad aragteen iclaanaad waxa la yidhaahdo aad u tiro badan leh iclaanaadkan macnaheedu waxa weeyaan inay alaab suuq geeyaan adigoo aan baahanayn in lagu yidhaahdo waad baahan tahay oo waxaan kama maarantid إعلانك عيد كستو وحسميسي ورشد كستو برودكت سو saartay si ay jeebkaaga u baadhato waa inay kugu qancisaa productan inaad u baahan tahay wax lagama maarmaanayo inuu yahay that's why waxaan oo iclaanaad ay TV-yada raadiyoyada jaraa'idka uga socdaan waxaa la mid ah maanta dunida iyadana afkaarta la suuq geeya afkaar aad u tiro badan oo gaalnimo leh oo ilxaad leh oo fisqi leh oo xumo leh ayaa la suuq geynaya ilaa xad maanta erayada qaarkood la cabsi galiya qofku hadduu wax ka yidhaahdo inuu is yidhaahdo warar maaba adiga lagu qabsadaa xorriyadda iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda iyo erayo la buunbuuniyey haddaad tidhahda war waxaasi sidaa maaha in lagu cabsi geliyaabaa u muuqata waa la suuq geeyey ilaa lagugu qanciyey inaad waxba ka odhan karin musallamaadka inay ku jiraan haddaba waxaan leenahay qofka mu'minka ah ee diin haysta ee ilaahay faray inuu diintan xambaaro oo qaado waxaa laga rabaa inuu yeesho dhaqankii diintan suuq geyn lahaa bidaacadeenna sidaynu u suuq geyn lahayn baa laynooga baahan yahay akhlaaqiyaadka ugu badan ee markaan wax ka tilmaami doonaa waa akhlaaqiyaadka ku saabsan sidaynu u suuq geynaa afkaarteenna waxaana la og yahay waxyaabaha ugu mudan ee afkaartu ay ku hirgasho waxaa ka mid ah dhaqan wanaagga qofka wada inuu dhaqan fiican yahay walidaalika baa ilaahay nabigiisa wuxuu ku tilmaamaya wainaka la calaa khuluqin cadiim afkaaruhu iyo mabaadi'du waxa faafiya ee ugu waaweyn waxaa ka mid ah dhaqanka fiican haddaad taariikhda eegta ama bini aadamka iyo sida uu afkaarta u suuqeeyo aad eegtana waxaad arkaysaa afkaar munxarifa oo liidata oo dhaqan wanaag lagu suuqgeeyay oo la aqbalay akhlaaqiyaadku markaa qur-aanku wuu ina faray waana tiro badayna aayaadka qur-aan ee akhlaaq ka warramaya walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa in allaha laa yuxibu kulla mukhtalin fakhuur waqsid fii mashyik waqdud min sawtik إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تمشي في الأرض مرحا
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني هدين قرآنك قصة أروري أخلاقيات كآخرينه وقتك انت أسبق قادنيسا لكن وحان رباه عموما إن أنت الماما قفك مؤمن كي هرتين وأخلاقياتك يدين تودتك ويريين يساقك مغطه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إذن أيها الإخوة waxa shareecadu akhlaaq fiican tilmaamtay qofka daaciga ah isaga mudan in laga helo akhlaaqiyadka markaan leenahay waa loogama maarmaan dacwada waxa kamida dulqaadka waxa kamida dhimrinta waxa kamida dabacsanaanta waxa kamida sabirka waxa kamida naxariista waxa kamida cafwiga iyo dambi dhaafka waxa kamida isdhuldhiga iyo walaalka inaad iska horaysiiso waxa kamida geesinimada iyo amaanada waxa kamida xishoodka waxa kamida tafaa'ulka waxa kamida deeqda waxa kamida zuhdiga waxa kamida shareecadu waxa tirada badan leh akhlaaq ay inooga sheegtay saddex shay isaga daaci kama maarmo oo waa maxay alcilmu qablaha ay qabla dacwa iyo alrifqu macaha iyo asabru bacdaha bay yidhaahdaan saddexdaa daacigu kama maarmo inta aanu wax sheegin masalada inuu aqoon u leeyahay dadka badh baa iska caatifooda inay wax sheegaan un jeclaystaan dabeetana wixii sidii la rabay si aan ahayn u sheega si aan ahayn u sheegadu macnuu maaha waxaan diinta ku jirin buu sheegayaa ee diinta iyo maraatibteedu kala garan waayaya waxaan dadka lagu adkayn buu ku adkaynaya waxay ahayd in la adkeeyaa buu dabcinaya waxaanu garanaynin waxaan uu sheegayaa martabada uu diinta ka joogo idan waxa u horeeya ee dhaqanka daaciga laga rabaa waxa waa maxay والعلم قبل الدعوة إنه أقون يشو وحاو داعيك كي إنه أقون يشو كلا بعدنا والرفق معها هذا قد قال سنة درر سنة عدد كسوقلين أين تسوق شادي قال ربعين فكرة هذا السوق جيسو إن لقى قطه إن قفق قنعه إنه كراعه إنه إلهي عابده إذا مبدأ سوق غينا يا يوم كل دقالما يا اسمله لما تشوغ صاحة الجهاد وحل تشوغ صاحة الدعوة والله قوبوت أو دقن كلا قديسين هي قوبت الدعوة دقن كيد وحويانا الرفق إن لورد مريضتك شيء صدق هذا أنو داعي كم مارمني وإنه الصبر لي ما دمرك الدعوة فليه دعوة مركات شيكتو متكو تهمات أركي متكو عايات أركي متكو ماقات أركي متكو حكاش شيكات أركي وحضبها أنت يا صبر بعدها ويا قرآن كمركات أخرده وحضرك يسير النبي دي ولا ليه وكاذبية وكذابية وصاحرية ومجنونية إلى حد نبي محمد قال يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون أما الله إلهي تشبه دردري الضمام الأزدي انتو يما دويد هذا وحا الله يشاق إن وحوقات ضبايلكم مرطيا كاشدو وحكاقة طفو إذن وحك استوى ذرك متكو عايا ذرك متكو ماقا ذرك متكو دقالا ذرك متكو عيبايا ذرك أدنا خير بعض للربطة إذن داعيقو هرت الصدح ذا الشيء مركو هرم مرنبا كمان مارمو وإني ملازم كو أهاتا إن وحو شاق يا قولوا لي سن مرسن inuu sheego
iyo dhibta kaga iman doonta inuu ku sabro saddexdaa hal haddaanad wadanin waxay u badantay dacwaddaadu inaanay xoogaysanin dhaqan wanaagga aynu tilmaamaynaana waa waxa keena dadku inay qofka u soo jiidmaan intaanu hadalkaba sheegin walidaalika qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya nebi yuusuf qisadiisa suuratu yuusuf dhowr meelood baa waxaa ku soo arooray muxsiniinta ilaahay wuxuu leeyahay nebi yuusuf waxaa xabsiga la galay laba wiil ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق الرأس خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبي يوسف ولا ظلمي ظلم بدنين تكسر عمرك دمان الله مصبت كنا نفت بني آدم كي وحيابا قاضتك من مدها waxaanad samaynoo dusha lagaa saaro oo haddana lagu xidho gabadh iyadu hunguraysay oo uu diiday ayaa haddana sii masabiday dabeetana dusha laga saaray in la xidho isagoo caynkaa u xidhan ayuu dadkii jeelka u axsaan falaya u sabafalayay labadii wiile xabsiga la gale riyooday waxay ku yidhaahdeen waxaannu aragnaa inaad ka mid tahay min almuxsiniin inaad ka mid tahay dadka ixsaanka samaynaya baanu aragnaa bay leeyihin yacni nebi yuusuf waxay nimankani ugu soo weecdeen ixsaanka uu samaynayo darteed ilaahayna fii suurati yuusuf intaasoo aayadood walamaa balaga ashuddahu aataynaahu xukman wacilma wakadalika najzi almuxsiniin قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا الذي سيقدك كردي وأنقرنا باويمي وحيليهم إنا نراك من المحسنين kuwii xabsiga la galayna waxay leeyihiin innaa naraaka min almuxsiniin waxaa meesha ka muuqata yuusuf axsaan samayntu muxsinnimadu inay daahira si fiican uga muuqato ahayd taasaa waxay keentay in dhegtiisa loo raariciyo ayuha alikhwa haddaad qof wanaagga dadka la jeceltay oo u dhimrinaya waxa fudud inuu dadku ku dhagaysto ama ku raaco haddaad se noqoto qof adadagoo kakakan waa adagta in lagu dhagaysto nebi yuusuf ixsaankuu samaynayay daraaddeed markuu arkay in loo dhaga nuguliyey su-aashii la weydiiyey intaanu ka jawaabin dantiisii buu gutay oo ah inuu tawxiidka gaadhsiiyo wuu is-sheegay inuu reer nebiyaa isagu ka soo jeedo oo ilaahay keligii caabuda waan cidna ugu shiriig yeelin buu is-sheegay marka hore mar labaadna wuxuu sheegay rabbiyo badan in la caabudaa wax saxa inaanay ahayn xukumka in ilaahay keli iska leeyahay waxaasoo dhan markuu u sharxay ee iyana u fadhiyaan oo dhegaysanayaan kadib buu u sheegay wixii ay weydiiyeen ixsaanku sida uu dadka u sanduleeyo aan qiso idiin sheego sheekhan kuweytigee la yidhahdo axmed alqataan ayaa qiso ka sheekaynaya aabbihii ku dhacday aabbihii wuxuu ahaa nin badmareena dadkan doonyaha raace waxgada ee wax soo iibsada dabeetana doon aabbihii saaran yahay ayaa waxay soo martay meeshan shaati alcarab la yidhaahdo shaati alcarab wuxuu leeyahay meelo webiyadu ku soo darsamaan oo dhoobo midhanoo doonyuhu hadday galaan ay adagtay inay dib uga baxaan doontaa kuweytiyiintaabaa waxay u timi doon kaloo meesha intay gashay ka bixi kari la kadib bay waxay yidhaahdeen waar doonta noo jiidoo nooga saara meesha qoladii doontan wadatay waa yahay bay yidhahdeen inna yaro suga biyo iyo waxbaanu dhaandhaansanaynaa markaannu dantayada dhammaysanno ayaannu idiin jiidaynaaye
habeenkii markay saqa dhexe maraysay ayay waxba umay jiidine way ka baxsadeen saqdii dhexe iskaga guureeyeen doontoodii ka haysteen qoladiina dhiidhigii bay iskaga dhex jirtaa waxoogaaba markay sii socdaan ayuunbaa daruuri dul timid doontii baxsatay daruurtii dul timunbaa hillaacday oo onkaday oo danab baaba ku dhacay doontii danabku shiraacii dheeraayee u taagnaa ayuu kaga dhaco wixiiba waa gubay dadkii saaraa qof ka mid oo axmed alqataan aabbihiiya ayaa danabkii dadku ku dhacay buu ka mid ahaa odaygii shalal baa ku dhacay baralys buu noqday xanuun ah oo aan baralys rasmi ahayn laakiin xanuun noocaasiya aakhirkii waa la soo celiyey kuwayt baa dib loo keenay odaygii xanuunsanaya waxoogaagii uu haystay waa ka dhammaadeen odaygiina waa fadhiyaa hooyadiina waa la joogaa waxba ma haysto waana bukaa dabaduu ku gurguurtaa guriga hortiisuu marmar xalwad yar iyo wax ku iibiibiya maalintii dambaa lagu yidhi war nin wadaadoo dadka wax ku tufaa jiree maad u yeedhatid wadaadkaasi bal ha kugu tufee wadaadkii buu raadceeye wuu u yeedhay wadaadkii markuu u yimi ee uu soo galaa wadaadkii wuxuu yidhi imisaad bixinaysaan qur-aanka kugu tufee dabeetana wuxuu yidhi war ninkaa fadhiya dabada ku gurguuranayaanhay waxbaba ma haysto nusrubiyad waa xilligii isticmaalka nusrubiyad baan haystaa aniga iyo salaanta cunnadayadiiya war waxaa lama aqbala buu yidhi 5 rubood ma bixinaysa 5 rubood haddaad bixiso qur-aanka waa lagugu tufayaa haddii kalena cidina wax kugu tufi mayso waxba ma haysta buu yidhi wadaadkii qur-aanba kuma akhrinina waa iska tegey haddaad lacag haysan maxaad dadka ugu yeedhaysay weeyaan wuu ka baxa ninkii sidii buu dabada ugu gurguuranayaa xawaali 10 sanawaat ayuu sida tan ahaa maalintii dambe qolow timo waxay idhaahdeen war dhakhtar maraykanku leeyo halkaa ku yaal baa jira ee maa tagtid gaal skantar la yidhaahdaa joogee dee dhakhtarka siduu u gaadhaya waa ninkan dabada ku gurguuranayee iyadoo xagaaya salaaddii subax markii la addimay ayuu daba ku gurguurad soo bilaabay uu ka soo baxay uu soo socdo maantii oo dhan gelinkii horoo dhan xagaa adugu qiyaas khaliijka jooga oo baashu 50 digrii gaadhaysa kuwayta ayuu dabada ku socdaa goor ay duhurkii marayso ayuu dhakhtarka agtiisa markuu soo gaadhay ayaa biyihii ka dhammaadeen si uu dhididaya u shubmaya buu dehydrated noqday carabkaa engegay jidhkaa engegay meel walba waa engegtay waa dhaqaaqi kari waaye dhiig baa ka da'aya intaa uu soo gurguuranaya meeshaa kulul dabeetana derbigii dhakhtarka meelaa buu isnabay baabuu gamay wuu suuxay muqma calayhi buu noqday dhakhtarkii baa loo sheego waxaa la yidhi qof baa halkan dhakhtarka derbigiisa jiifo daaqaddu ka eego wuu arkay qofkan meesha jiifa neersigiisiiyo wixiisii buu soo kaxaystay waa u yimi odaygii waa la qaaday waa la maydhmaydhay meelihii baa laga daweeyey nabarradu kaga soo dhaceen xanuunkiisii baa la baadhay waa la gartay irbad baa war kalaanu u baahnayn buu yidhi oo waa maxay waxaanu u baahnayn buu yidhi inaad anigana ay tidhaahdo wardaynta lagugu leeyay si fiican isaga bixi isagana inaad ku tidhaahdo wardayntaada si wanaagsan u dalbo intaasaannu kaaga baahnayn buu leeyahy ee seef baan madax wuxuu ku goynayaa iyo warkaasi lagaama rabin ee kac oo xoolahaasi waxaad ka siisaa ninkan dayntiisii iyo weliba riwaayaddu waxay ku daraysaa inta aad baqa gelisayna 20 dirham oo kalena ugu dar ama 20 saac oo tamirana u dheeraysay waxoogaagii timirta laga amaahday waxay tilmaamaysaa dhaqankii nabigu calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu zacnana tiibuu ku islaamay baa la yidhaahdaa alaan baan xaqiiqsaday buu yidhi inaad ilaahay rasuulkiisii tahay ayuha alikhwa dhaqan fiicnidu waxaan leenahay waa bariidka waa waxa keena in dadku ku aqbalo daaciga muslimka ah ee dhallinyarada waxa laga rabaa
inuu qof danta dadka u janjeero oo wax u qabanaya noqdo. إلهي با قرآنك كنت المامية فبما رحمة من الله لنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك بقى علماء واحد هذان اللين في التعليم مجد جدا وفي الإنكار مفيد للغاية بيد هذا دبع سنانت بيد هذا وحبرسته من الدلب في عم بيقول هذا معلم قادو شون لبه وده وحكفي عن معلم دبع سنة سفي عن وحشيغا markaad inkaar munkar markaad radinaysidna waxaad rabtaa in laga aqbalo si lagaaga aqbali karo inaad u sheegtaaba ka fiican. walidaalika buu nabigu kii ku kaajay masaajidkee saxaabadu ay ku qaylisay wuxuu yidhi warkaadida ha ku goynina iska daaya. isagiina markuu kaadada dhammaystay waxaa la yidhi idinkuna baaldi biyaa qaado ku shuba. isagiina inta loo yeedhaa la yidhi masaajidan looma dhisin in lagu kaajiyo in la xumeeyo toone waxa loo dhisay ilaahay dikrigiisa iyo tasbiixdiisa iyo cibaadadiisa. kii salaada ku dhex hadlay isagoo aan garanaynin saxaabi baa iyadoo la tukanayaa mid hindhisay. saxaabi iska yara cusub baa yidhi yarxamuka allah halkaa ka yidhi. salaadana ilaahay unbaa lala hadlaya cid kale lalama hadla. salaada markaad ku jirto كافو الخطابك إلهي وما الله الله عدك الله ما الله نكيه النسي أيو جوابه وحكيره يرحمك الله دبتنا صحابتي بودة يوقرعنا ما صحابه سنقد بالله مغشي لي يا أمه وأبو السيح هذا وحيره هو يدين ذيك قبل أنت محين ده يجوا يساموك بلاه يجي أبو السيح معك صلاة دواجي هو اللي هدي شري مركي دم الله نصخ markii salaadii dhamaatay buu nabigu u yeeray calayhi salaatu wasalaam. ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahay macallin nabi maxamed ka fiican inaan arag ima maagin oo wajiga ima faydfaydin oo waxba kale ima odhanay wuxuu u sheegay waxaas inaanay salaada u cuntamin iyo sida loo tukado buu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam. idan qofku inaad salaada wax u sheegto ama sheekh al-Huwayni ملا أمثلة عصر جنبا كتشعشين كوي هراء. الشيخ أبو إسحاق الحويني أيه وحولي مركيانو براني كتاب كان الشيخ الألباني صفة الصلاة أيه ميلو تكون جريبا نفط سووك ريويل سنة الصلاة وافقسية مد فرطة نغنى ويسكوب ماغني واحد نبيل اللي بدا السنة مغرب كم داني مؤدي كيبا كوهشي نبيل عن سمينو داتكينا واسك شافعيين بملاها يعني مركز صلاة الله مغرب كده شافعيين وحبك ما هو الرئيسي ولا سكتوا كده الصومالية وينو نقانين لا يدادا فرتنا أور أفرتن كان أور وأور كل دو قول كشافعية ضمن إمام الشافعي قول قديم قول جديد وليه قول كيس قديم كإلا شفق الأحمر كساء حديثه المام يسوع قول كيس جديد كإيمان رجينا يا هذا لبدا قول السويداري كجديد كي وحش يا فترة أضو يرينت أنت اللي جوي سنة صلاة اللي كنت تقرينا أنت عطاي مغرب ده ضيال سك شافعية ده هيستا أي سنة كبلابه مركا ور سنة هنا يا وحن ما أنا نرك بيدا ده صلاة النتوكية مؤدي كيبان له الشيء بيدا وحن كوري مركا ضميسو آذانك marka ugu dambaysa ayaan anigu salaad iska galaya marka aad aragtayna salaad galay aad halka tago sunnayso sunno bil qasaba oo dadka la rabo inay sunnaystaan markii aadaanka dhameeyay uu yiri baan Allahu akbar ayde isna xaga dambe u baxay te waxaanu salaayay way tukanayaan way mar hadii imaamkii iyo muaddikiiba salaada galeen dadkii salaadna ma tukanay caydayaday wadeen buu yiri intii aan salaada labadeed ku jirnay diin bay la yimaadeen cusub iyo waxa bal sheegayaan محمد بخيت المطيعي الشيخ يسمى محدث كهاية من علماء الشافعية شرح المهذب كشيخ دميي أيام مركي دم الله صاحي لي يبوي دوانو إيمي كتاب أصول الفقه يعني الله نجاي فحنو كلا برنا يبوي واجب كي يسر النضا يكن طلدا شنس النضا ده وحكوا وده يبوي دوان برسين واي شيخ المطيعي مركي وحوجا كقاطع كون نقض يبوي دو مقالة الجبل جدي باللح بلاد بان حاجة كلا وسر يبوي دو وركي جلاقة وإسلا يسقيهم لكن أساليبته وحق دنيا أي كلا قديسا ضدك مركز طاعون قدم الرصاص مركز طاعون قدم الرصاص بيشيجس ضدك أرجع قادنا ولذلك
silata bnu shaym ayaa waxaa la yidhi nin buu soo maray isagiiyo koox la socoto surwaalku u dheeriyo dhulka jiitamayo markaasay damceen inay maagaano war aniga ii daaya buu yidhi ninkii buu u tegey niyow dan baan kaa yaro leeyahay buu yidhi waayahay adeer dantaadu maxay ahayd buu ku yidhi yaa ibna akhi wax kale kaama raba buu yidhi surwaalkun koruu yaro qaado sunnada nebigu waa inaad canqawga ka sarraysiisee nacam wa karaama buu igu yidhi buu yidhi sunnadii nebiga hadday tahay waa aqballe weliba adigoo ku sharfan yacni wuu ku soo noqday kooxdiisii wuxuu yidhi haddaad ku qaylin lahaydeen laa walaa karaama buu idin odhan lahaa buu yidhi markii laakiin dhimrinta aan sida fiican wax ugu sheegay ayuu ku aqbalay amhilada culammadu bixisaa waa tiro badanta walaakin ayuha alikhwa inkastoo aan leenahay dadka badhna liinkay si qalada u fahmeen oo in munkarka laga aamuso ama aan la radinin ama caynkaa ma aha qisada nebi muuse ee qur-aanka ku taalla haddaad si fiican u akhridaan labadeeda dhanba qisaday ku dhex jirtaa waxaan markaa ku gebagabaynayaa ama ku soo koobayaa waxaynu u baahannahay inaynu baranno akhlaaqiyaadka loo baahan yahay akhlaaqiyaadka waxaa ka mid ah deeqda wadaadka waxaa laga rabaa inuu deeq bato nebi maxamed qaar buu siduu wax u siinayay ay ku islaameen deeq mid buu 2 buurood adhi dhexdooda jooga siiyey dabeetana tolkii intuu ku noqduu yidhi war maxamed wuxuu wax bixinayaa cataa man laa yakhsha alfaqr niman faqiirnimo ka baqay sidii buu wax u bixinayaaye war islaama u doonta buu leeyahay wax qaswatu xunayn siduu geel ugu waday qaar 100 halaad siiyey oo 100 kala siiyey oo 100 kala siiyey ku wada islaameen raggu jeclaana waxba ma siinin isagoo u sheegay saxaabigii la joogay kuwa aan wax siiyey kuwa aanan wax siin baan ka jeclaa waxaan ku soo koobayaa hal mas'alo waqtigaas ka kooban mas'aladan ku soo koobaya waxa weeyaan at-ta'affuf wa zuhd طلاب العلم waxa laga rabaa dadka gacantooda waxa ku jira inaanay hurguraynin imika waxaad moodaa diinta wax u qabadkeedii iyo hungurigii in la isku yara nabayo oo ninku maslaxadiisa uu ku yara wato diintiina uu sheegayo haddii laakiin maslaxadda yar uu waayo ama uu dagaalamaya ama waxba sheegi maayo nabi maxamedna wuxuu leeyahay izhad ma fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas dadka gacantooda waxa ku jira ka zaahid dadka ku jeclaanaya ayuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam dadka ku jeclaanaya ilaahina anbiyada markuu soo diray nabi walba wuxuu leeyahay wama as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala allah salada waaridu ku adkaynaya waqtigoo dhacayna balbalaadiyaan sa ka jeclaa waa maxay diin sheegaaga inaad isku daydo inuu lillaahi noqdo waman axsanu qawlan mimman dacaa ila allah inaad isku daydo dadka gacantooda waxa ku jira inaad hunguraynin inaad isku daydo adiga maslaxadaada iyo diinta inaad isku xidhin oo haddii maslaxadaadu ay dunto aanad odhanin diintii bay dadku duminayaan idan ducaadda waxaan leeyahay inta aad xor noqon karto xor noqo inta aad xor noqon karto haddaad diin sheegi karto adigoo aan cidna wax ka qaadan hada huwa alawla sida ugu fiican waa sida qurubaadkana waxba laguma qaato inay dani ku badan mooyaane qurubaadka salaadan idin tukinaya lacag ugu siiya quraankan dhigaya lacag ugu siiya asal maaha asalku waa salaadan idin tukinaya ilaahay baan ajar kaga doonaya quraankan dhigaya ilaahay baan ajar kaga doonaya hadday sadani bado ودي dadku intuu iska wada xoogsi taga la waayo mid quraanka dhiga ama intuu iska wada shaqo taga la waayo mid dadka tukiya hal la tukiyo hana la siiyo laakiin yaana asal laga dhigin ee waxaad isku daydaa diintaada inaad faafin karto adoon cidna wax ka qaadan cidna wax weydiinin cidna u baahanin waana marka weedhaadu ay qofka dhagtiisa galayso markaad se waxoogaaga ku qaadato dadku inaad shaqadaadii haysatay u haystaan inaad diin sheegayso uma haystaan sallallahu ala nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim